madashu waa madaxtooyada qaranka ujeedka isku imaatinku waa xiritaanka baratan ciyaareedkii dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo abaalmarinta guuleystayaasha sanadkan ee kala hantiyay kaalmaha koobaad iyo labaad Banaadir iyo Galmudug iyo sidoo kale xidigaha iyo garsoorayaashii kaalinta fiican ka qaatay qabsoomidda tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isdul taagay ahmiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin nabadda xasiloonida iyo horumarka dalka ayaa sidoo kale tilmaamay sida ciyaaruhu ay muhiim ugu yihiin la dagaalanka xagjirnimada maandooriyaha joojinta tahriibka iyo qabyaaladda waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay waa guuleystay waa wada guuleysanay maxaa yeelay waxaan muujinay inay Muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalanahay sidaas darteed waxaad runtii tusteen astaan ama calaamad wanaagsan oo adduunka oo dhan maalmo uga hadlayeen Soomaaliya oo loo yaqaano meel colaadeed meel dhibaato ka jirto meel ummadooda isu imaan karin inaad muujiseen shacabka Soomaaliyeed ciyaartooyda iyo maamulkaba inaad muujiseen iyo media sida aan sheegay in Soomaaliya ay hore u socotay ay horumarna gaartay tartanka ciyaaraha kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ku soo gabagaboobay garoonka Injineer Yarisow ee Muqdisho waxa uu si mug weyn u soo bandhigay guulaha amni iyo horumar ay wadajirka u xaqiijiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waxa uu sidoo kale bidhaamiyay horumarka muuqda ee uu sameeyay isboortiga dalkeena iyo hibada ciyaareed ee ku duugan jiilasha soo koraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan xooga saari doonaa insha Allah inaan goboladana meel kasto in anagoo kaashanayna hay'adaha in garoomo laga dhisameeyo in ciyaaraha kaliya xamar in lagu dheelo waxaan rabnaa marka dambe in lagu dheelo maxal yiraahdo ama lagu dheelo Baydhabo ama lagu dheelo Kismaayo ama lagu dheelo maxal yiraahdo Garowe munaasabada oo goobjoog ahayeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed wasiiro xildhibaano iyo marti sharaf kale ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu bilada ku gudoonsiiyay halyeeyadii sida fiican uga dhex muuqday tartanka muddadii uu socday iyo kooxaha gobolka Banaadir iyo Galmudug oo kala hantiyay kaalmaha koobaad iyo labaad madaxweyne Farmaajo ayaana ugu dambeyn u mahad celiyay ciidamada qalabka sida ee juhdiga badan ku bixiyay xaqiijinta amniga muddadii tartankani ka socday garoonka Injineer Yarisow ee Muqdisho waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga waxaan u mahad celinayaa ganacsatada oo runtii qayb kaalin muhiim ah ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada waxaan u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen in qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii muujisay ama noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo tartankii xiisaha badnaa ee ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ku soo gabagaboobay garoonka ciyaaraha Injineer Yarisow ee Muqdisho waxa uu abuuray fursad isdhexgal bulshada Soomaaliyeed waxa uu sare u qaaday walaalnimada iyo midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu soo bandhigay hibada ciyaareed ee ku duugan jiilasha soo koraya ee dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale waxa jirta in uu abuuray fursad ka duwan oo ah fursad dhaqaale oo ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada caasimaddu ay ka faa'iideen sidoo kale tartankan waxa uu noqday mid ka mid ah tartanadii ugu xiisaha badnaa isla markaana ugu daawashada badnaa bariga iyo bartamaha qaaraddan Afrika waxayna tani muujinaysaa horumarka muuqda ee uu sameynayo isboortiga dalkeena Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya